maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dabeecadaha dadka. haddii qofka markii la ammaano farxo, markii wax laga sheegana caroodo, waa qof remote control dad kale u hayaan oo kolkii ay rabaan bedeli karaan. kali ahaanshuhu waxay qofka ku sababtaa inuu qubayska ku daaho, wax badanna hurdo aadna u fakaro. haddii uu qofka ka caroodo waxyaabo yaryar ama nacasnimo ah, wuxuu u baahan yahay jacayl. haddii qofka cuntada uu u cuno si aan caadi ahayn, waa qof nervous ah. haddii qofka wax yar hadlo balse uu boosiis u hadlo, wuxuu xafidaa sirta, waa sirhaye. haddii qofka markuu rabo inuu dadka wax u sheego yiraahdaa afkeenna waa isku ammaan, ama dhaaro inaadan cid kale u sheegayn, waxaan badana shar ah. haddii qofka wax kastoo la weydiiyo si adag ama qalafsan uga jawaabo, isdifaacana ku badan yahay, waxaa haya cawdo nafsi iyo kalsooni darro. haddaba adigu dhegayste, midkee tahay? dabeecaddaansi tee leedahay? qaybta hoose oo commentiga igu soo qor. waa Cabdulaahi Xasan Nuur Yariisow oo idin leh tan iyo intaynu barnaamijkan lamid aynu ku kulmi doonno noole kulante. Please subscribe Isar channel.